degan mise aabihii baa degan walaal annaga waxa inaan yaasiino ma naqaano hargeysa haddaydan aqoon hala soo dhexgelina naga joog hanoo imaanina mi maqlaysa gantaalo inaadan qof fiican baan ku aqaanay doqonnimada kala baxmad ina adeer Idris Bebow waxa ina adeer aad magaalada Muqdisho iyo dadka jooga ku sheegtay ina adeer ummadda ma wada xumo qof xun hadaa aragtay ina adeer ummadoo dhan qof xun way leedahay laakiin ma aha ina ummadoo dhan wada saameyso wax ka wada sheegtay diraado halka dadka jooga hal mar ninka odaga la hadlay waa yaaban heelaha isugu hal mar in adeero af Soomaaliyan ku rabaa inaan kugula hadlo af Soomaaliyan kugula hadlaya qof kasta Soomaali uu fahmi karo hadalkayga si fiican u dhageyso hadaa rabto inaan doodno oo labadeena doodan dhaxmarto ummadda ay duubaan waa gooni wax ila duubida oo kala duubayay laakiin si niweyn wala waxa ina adeer faa ilaaha illa allah maxamed rasuul dafiri aniga weysa ay dhowrana ku dhahay si niweyn aan kula hadlaya saaxiibo markay kaliya maqadiris anigu kuma aqaan sida okay rag odayaalan hadda la jooga niyow hadaa rabto in wax lagu duubo oo dood in dhaxmarto waa gooni ma adiga waxay tahay ma hadalkan ka baxo adigu waxa artay dheh hadalkan ka baxo anigu ma caynay hadalka gantaalo ninka ka niyow fiiri ilaahay baa yiri xaq lagama xishoodo magaaladeedii iska daayay magaalo aniga aanan deganan xitaa ka hadlaa gabar kasta ee TikTok timaada qolkeyga markay timaado yaa tahay aroon dhinan caawiya qaarkood maanta waa iga lacag badan yihiin haddana anigu nin xun ahay ama aan gabdhaha aan u gafayo kuwa aniga maanta iga lacag badan shalay aniga aan garab siiyey rag xataa ma caawiya aniga dumar aan caawiya meelsha aan jaceylka kaga qabo magaalada Muqdisho gabdhaha joogo oo dhan uma aanan gafin mana aanan wada cayn mana aanan aflagaadeyn intii xun baan sheegay aniga kuwa ila dhashay baa jooga abtiyaashay baa jooga habaryaashay baa jooga ehelkaygii baa jooga xumaantana waa la sheegayaa ma fahanti niyahow waxaan ku iri wasiirada Soomaaliya qaar kamid ah gabdhaha magaalada Muqdisho loo geeyaa iyagoo duruufta kaga faa'iideysanaya gabdhihii qaar baa balwad leh oo balwad dartii jirkooda u isticmaalaya shalay baa waxaan keenay laba wiil oo mooto bajaaj ku dhaxaysata gabar yar ma ka aamus baa leedahay ninka tawa wixii cadana oo is inaad washeegi kartaa eeg wixii cadana oo masiil iyo bus isgalayaan TikTok dhax keena laakiin dhageyso warina kale lama doodayay boqorow saameeyay boqorow ina adeer waa kala maadsan ina yasina nigan ina dhaafi ina adeer may waa qaldan tahay raalli baad naga ahaanaysaa ina adeer anagu nacnac ulamaana imanin meeshan ina adeer weyn aniga Idris wuxuu soo bandhigay waan taageersan eer woman ina adeer soo dhaw hablow dhamaantii soo dhawaada thank you Idris halkan ina adeer meel walba joogan anaa kulay makaan nin reer Soomaaliland waan rag baan ogahay dawladda ku jira oo naagaha ballansada oo naagaha kiraysta oo marka dambe ilaa naagaha futada qori naga geliya oo nagu xoq meel walba dhaqan xumadana way taalaa laakiin in laga hadlo waa reality wey anigu Idris hadduu ka hadlayo anigu waan eega nin iga afdheer meesha media ma joogo Idris anaa qabsan lahaa haddii hablaha Soomaaliyeed ku gafo yaasiin baa qabsan lahaa cid walbaa qabsan lahay laakiin wax faagtii soo bandhiga wax cad ayuu soo bandhigay haddii aad doonaysaan inuu Idris ragga qaar noqdo oo maalin walba inan timaa jiito oo maalin walba qof timaa jiito maalin walba qof dulmo waad odhan kartaan Idris oo inaad wax dulmintaanu doonayna oo dadka dulmido ayaanu doonayna oo awoodaha aad media ku haysatay awoodaha dadka masaakiinta u adeegsato ayaanu doonayna waad odhan kartaan taa oo ay xumaha idinku badisaa laakiin qofka dhawrayna waxaas waa qaldan yahay waana wax inagu ceeba dhaqankeena islaamku ku xun yahay Soomaalidu waa sunta hargahadii Soomaalidu da faa'iido ma laha waa dadka weyn hadama garo imaka ninka weyn wuxuu soo fuulay isaga dad isku diraya Muqdisho ka hadlaya awdal buusita waxa uu isku diraya ummad walaalo wada degan yisi ninka doonaya inuu Idris isagu wax weydiiyo ee wanaag tilmaamo dad Soomaaliyeed oo walaalaadu doo isku diraya qofka waa la eega ninka kabiya ka toonaysa kabihiisa la eega wayna soo qabsaday wuxuu sitaa awdal isteed ma samaroon ba ilaa samaroona cadhooday calanka yar samaystay maxaa isagu waa nin hawiye oo ciyaalo caasimaha ya muu ilaahay dadkaas waa dad walaala ilaahay nabad waxooda ha ka dhigo muu ilaahay
buu soo fadhiistayoo isagoo ummad ku gafaya ayuu haddana ummad kale uu doonaya inuu doodo caqliyadda noocaasa markaa dadkan u yahay anaa fahmay anigu samarroonka horta way u kacsan yihiin gabar jarmalka joogto colaado ka horeysay booramo aan mar ka soo hadlay waa gabadhan saakana hurinaysaa hadday hurinaysaa samarroonku meesha igala dagaashay haddaan fahmay war haddaan fahmay hadday hurinaysaa hadda waa taa maanta waxay tidhi hadda waa gabadhii iminka cumaamad bay ka cadhaysantay gabadhaas habeen dhawood baa la cumaamaday soo dhejisatay inkaar qabayaashii isaaq ee balaayada ahaa ee jinka ahaa wixii ay bareen bay sii waayeen waa taasaaq samaronow rabiiliya allaalow 18 May dhaawac baa inoo yaalla dhaawaceenna waa in la dog annaga dhaawacayna yaa sheega meydka iyagaa iswada fuulay oo daarood ganta ka saaray ma cabanno in ka badan 5,000 baa naga dhimatay ma cabanno guri walba 20 dhaawacaa noo yaalla ma cabanno maalinba intay iyagu guri meel isu fuulaan bay 4 ka dhaawacantay imaka 4tii waa magtib curbacayn ma maqli jirtiin samara ma huwaatii layla subahayaan hadda wallaahi wareerka miyaana dhiban jirin war hal maalin baanu 500 nin aasnaa hal maalin baanu 500 dhaawaca qaadanaa kuwaan kaloo mixladana madaxweyne weeyo xataa naxariista ma yaqaana kuu qasli maayo wallahi bilaga waxaaba kugu daran kuwa habar yonis maslaxaad ka sugay habara xataa ma wallahi habar yonis ma qasasho iyo annaga habar jecel iska soo erini war naga tagaan ku nidhoona dhaaf habar yonis waa samaran maslaxaad ka sugaysa hal caadilsan imaka waa tag bal maxaa shalay baa samaan mid labaad ciise istilaya ma isaaq istilaya ayru ubana ilaadan illa gabadhina adeertaya ama tahay oo boqortooyadii oo nala dhalatay reerkan marka ciise maalin walba eriyadaan annaga nagu waalanay ayra wamanay habarooda maxaa soo sitaa ma cid la caawinay oo baldaa inanta adeerteena idris salaas والسلام عليكم سنتهي أكو في عنا ولا سنتهي أنا أدرس ده كلا واحد السلام أنا عسى يدي متى ما أدري هذا أنا أدري واجبه بالسوشيال ميديا سيده رقم صوت ده ما كان هذا الشيء بس ما يقولون ولا لا أنا هذا قرح يصير واحد السلام كل جين السلام عليكم إدرسوا أرنا الربع إن كلا هذا لكازن كونتاكت جا بروفايل كمكوسارين ما إنا أدري لكن لوقا كذا أيوة سوقر كازن فرينا هاي بليز هذه الدولة هذيك أنا أكون صادر هذا يصير أنا صادر وما تسنتين واسكا الرمي اللي قبرت له الله عيا يقولون فهم سنة وانين أهل قيرة مركا خير كاس اللي يقول عبيه جهنم بنوتشي ذا نايمة كده يصير قبيل كانوا برنا والله ماشي جهنم على السوى تيك توك قفل بمجلس مركا أركت وحبال له حسام وقت هذا عادي ممكن كو أركو ياسين وفوست إن الريح إذا كو حسا لا إله إلا الله وابدي قلنا حي هرقل إدريسو كلا مارتي قلت كلا هرقل بيقول حكم معنا أنا ما مدي هذا الشاطر هذا الكلمة إيدينيسا ما هذا هذا سيد حسن شيقة وحالي اللي بندو لغات دي قلقو قلنا جوك سوينا أبو سالقات مركا قفول بقولكم مركو صوقلو جوينتي سال أرك وحبوكو حسية مركا إلكاس أهل قير واي ومداس وقرقارة أسنا إلهي وقرقارو وإسكو حراها ومد الصوماليات ديق بحياش يكو باهانو إسكو حرا جزاك الله خير إدريسو الدونكا وحكالو كان رعايا بسكير أنا قاو كل شيء مدعي سيدة وردقة التطبيق إنا أدر وناق فل والله صفك هرانكو قجراي وناق بلاو This life is very short يدير سوحي وعن بالك ما هرد والودقة أدوك هاري والله وحي وعن بالودقة أما أنت الدعاء wax walba ka fogan bini aadam hadii kala waxa cirri xidigtana maxaa la isku soo agdhay wallahi reerka reer waqooyi ah dhibaato ka dhex taagan waxa aan kala daba geeyo xabaan nagu dhacay naalaale ona 18 May ona lacagtii ku baxaysay dhaawaca inoo yaalaha lagu qaado yaa dhaawac u yaala marka reer boorama ma dhaawaci ciisaha iyo iyaga ma Soomaaliland ma naga laysay Soomaaliland habeenkii wax dishay surahan iyo gaadsintii
soo maalin dhawada ku intay boor ma annaga tageen dadkidin iyo mareexaana isdilla surro iyo nama soo gaara gadabiirsi isaa xabadooday wata halka maalin dhawada ku dhakhtarka tegey idriskaas reerkiisa dad badan iiga maqan yihiin ma fahamtay aan ka daba tegayna isaga laftirkiisa haddaynu caasimadda ka maalin qaadayna dhawada ku dhakhtarka tegey ay deetana mid baa kamarada halka kala istaagay albaab yaroo muraayad leh ay kii dictoorkaana guduhu galay deetana markaas waxaa ku tiri albaabka sidaa sidaa ka sa markaasay kamaradii furatay way alla wataa ma maqlaysaan xabadii baa nagu socota ay waa dhakhtarkii weynaa wakaa hadda waxa aabahay baa yaalla wataa aabahay ku dhacday hadda wallahi waa sida goormuu dhacay dagaalkaas amiirow dee dagaalba mahay waa kii maalmihii ciisaha weeye waa 3 bilood ka waa 2 wiik waa 2 wiik hor may hal marka dhakhtarku waa dagaalkii koobaadee war tanaan kala hadlayna dagaal ma jirine maalintii 4 nin iska dhaawaceen 3 qof ee oramada aad dileen ayaa noo sheegaysa tani waa 2 wiik hor way wata aabahay baa ku dhacay dawladdii ummadda wasku kacday war halka xabadu ka dhacday dhakhtarkii weynaa baa la tegey salnin iyo naago socdaan noo soo galay albaabka dambe daraaceen yo amiiro si baan u naxsanahay bila dulminayna reerka dulmiga suldaan wabar soo laabtay ma dulmiga waxa ku jooga bila suldaan wabar laftirkiisu arrin kala wada reerkan iyagaa dulmiga wada reerkan reer ciise la yidhahday siryanaya ciise aynu ka raacno ciisahaas aynu maalin walba caayayno ee la dagaalamayna inama caayo calanka somaliland bay ku dabaaldegaan qarannimada markay noqoto ciise ee samaroon ciisaa jecel qarannimada xaqiiqada ciisa calanka somaliland ku dabaaldegaa wallaahi billaahi isagoo inantayada qaba isagoo anala murminaaniyo jabuuti anala aadin maxaad adigu jabuuti ka doorta ciise meena soo madaxweynaha muxuu igu imaan hortaade yaa degan saylac ila saylac reer baynu doonayna inaynu xoog kaga qaadne saylac waa magaalada ciise nin maxaa mudda isugu sheegi weynaa bon waa magaalo ciise xariirad waa magaalo ciise lafa ciise waa magaalo ciise garbadadar waa magaalo ciise samaroon dee ma degana arunta isu sheegno oo markaa ma dulmi baa ku hiilinaysa dulmi baynu ku hiilinaynaa cad oo ciise waxaynu dulmiga uguga hiilinaynaa ismaaciil cumar geelanna ictiraafi waayey runta haddaad doonayso waaqiciga aynu ciise kula dagaalamayno ee aynu ciise dhulkooda samaroon u siinayno ee aynu ciise u xumaynaynaa waxa weeyaan runta haddaad doonaysid ismaaciil cumar geelle ayaana ictiraafi waayey waa ismaaciil cumar geellena ictiraafi waayey iyo firdhiyo ula saaxiibay maya firdhiyahani waxan waa iska halka dhow laakiin reerkan ciise abtaan hadalka idiin dhammeeyo haddaad dhulkan doonaysaan samaroon maxay maanta u mari weyd maxay seelac u tegi weyd samaroon sababta innaga inagu caayaysaa waa maxaad ciise u leen weydeen maxaad noogu daawanaysaan dagaalka maxaad ciise u xasuuq wada ma boora maa la isku haystay maxay boora ma uga dagaalamaan may seelac ku dagaalamaan dee seelac 140 kilomitir bay u jirtaa nacaso maxay ugu dagaalami waayeen ila boora may timaada baa seelac baabuur ma ku guraysa ma geynaysaa dee ma iyagu yimaadaan ila iyagaa hawan dagaalamaynaa eeg abti aan isfahanno hadalkaygaan kuu dhammeeyo kabacdi hadalkaa ka qaado reerka samaroon waa aabo ka yariga qabo ka weyn igu soo dah kuwan ciisuhu waa qaar dhiigii cabiina oo inkaar qaba subag bay isi soo marinayaan xilligu doonu waraabo noqonaya xilligu doono isagoo waraabo ah ayuu bini-aadanku ku noqonaya markaasuu golxobta ku marinaya golxobtiisana subag baa marsan isagu subag buu isi soo mariyey dabadeetana gebigii isagoo waraabo subag marsan oo qaawan baa kugu soo haadaya waxaad leedahay waa murursadaha direen waa murursaduhu isagu habeenkii isma qaawiyo isaga waa been ee kanba caadi waraabo u noqda 2,000 oo ciise ah oo dagaal ku jira oo xabadda kugu ridaya mar keliya gol xabooda qaadanaya inta qoriga dhigaan markaase hal mar labada kumba bahal wada noqonaya subag inta isku wada shubaan dabeetana sidaa xabad ugu jirto baa waraaba ku dulmanaya qac waraababa seefta ku may su'aal aan ku weydiiyo abtiyo markaan ku dhameeye reerka samaroon waxaynu intaasoo dhan u hagaajinaynaa walaalayaalow somaliland waa la wada leeyahy idinkuna kuwii budka u dhigay baati kow
laakiin haddii cid la dulmay somalilan oo runta la doonayo ciisaynu dulminay ciise maanta ciidanka ugu badan somalilan iyagaa samaroon iyagaa kaga badan iyagaa ka saraakiil badan baarlamaankii waynu u diiday wasiiradii mid tabcaana baynu siinay bara saab baynu siinay hadda ma fahantin waana reerka ugu deegaanka ballaadhan wax kale kuma haysana reerka mamaasan baa ugu badan ee ismaaciil cumar gelli ka soo jeedo markaa samaroontan maalin walba ina caayaysa ee ina aflagaadaynaysa ee somalilaanta ku waalatay tii shalatay isaa qowdaa haysay imanka waxay gabadhaas u dudaysaa habeenkii dhowtay la cimaamadayey maxaa cimaamadayda isaaq uga soo qayb geli waayey hadalka ma inoo dhibi saabto xeer ku soco horta waa ku salaamaya dadka tolka ee qolka saarina waa salaamaya akhyaartii hablaha sharafta iyo dadka ashashada ii garaaca oo la waar qolka baliyaa waxba shaashada la garaaca riboostina dhaha yaasiino wax yaraan rabaa inaa amiir weydiiyo brother khayr allah ku sii amiirow cimaamada xillimo waay cimaamadan way dhacday xillimay dhacday wiigii hore maba ogeyn ma la gaaray may sow ma ahayn cimaamada cimaamadii way dhacday waa tii la isugu yimi oo dabeetana isaaqiba 4 milyan ay u ballan qaadeen diri waayey imaankaa la ka qaad yaa u diray marka dee midhar samaroontii iyo dad kale iyo daarood iyo artibay fuushayo dee heestii jidwaaq baa la daartayo tii abgaal baa la daartayo ilaahay soomaali weyn buu u soo diray de meeqaa ku dhacda marka dee xoogaa 2 milyan miya ma waji wax noocaasa mise milyan iyo 700 4 milyan ay saaq baa meesha ka baxday dabeetana waa saaqaday ka soo ballaarisay wax la idinka soo xirto waa tiin marka isaaq waa dembigan iskale meeqa sana idiin qaylinaysa alla idinka soo maahay dhalisaa ku dhahaya isugadaa boqoradayda anigu run baa sheegay ilaah baan ka baqaya reerkan tolkayga ah ee weliba reer somalilan weliba beeshan aan ka soo jeeday isaaqa ah intii dagaalku socday gadabiirsi waa la socdeen runtaa caddaynaya waxaan ku odhaniyo tolkayow maxaa reerkan kalaba somalilan waa degan yahay loo riixaya anu markaa waan fahansanahay ninkan ismaaciil inuu inan laga qabo oo halkaan aanu iskaga kacsannahay dalkayagana aanu weli cagta soo dhigin si siyaad barra u baxay oo dhowr iyo 3 sano leenahay waana la ictiraafay ismaaciil weligii cagta ma soo dhigin ninka halka waa kaga dhegannahay ta kale waxaa meesha haddaba taalla reerkan tolka ahee gadabiirsi iyagu dowlad iyo system bay ka tirsan yihiin warbalgaalka dila gartiisana siiya reerkani system bay ka tirsan yihiin la dhaho somalilan madaxweynahoodu waa cabdiraxmaan ciro madaxweyne ku-xigeenkoodu waa reerkooda waa nin waxa weeye oo gadabiirsi ah reerkan hadday dhahaan niyo annaga waa nala dulminaya ama waa nala dilayaa ama reer baanu isdilaynaa inay dowladdu intay baxdo inay meesha aado oo dadkan kala dhex gasho soo xaq umay lahayn ilaa reerkani cashuur bay bixiyaan madaxweyne ku-xigeen bay ku yihiin 8 sano soo talinayeen inaad ciisana uga helisana waa kugu gardaro inaad koonu helisana waa kugu gardare bal amiira waxaad noo kala saartaa qaranna waan sheegaya somalilandna waan sheegaya qaybna madaxan kaga taaganahay qaybna kagama taagni ciise maxaad ku nacda ma ismaaciil aan dhigo su-aasha dhan ba kumbleed kaaga dhigay eeg hadda waa ii caddaysay somaliland gardarre inay ku socoto gadabiirsi loo heelinayay waayahay hadda reerihii halkaa joogay ee jabuuti lahaa ee inagu markaynu xataa weliba siyaad barre la dagaalamayna dadka ugu badnay ina caawiye waa la ogyahay amiirow gadabiirsi may ahayn ilaahay baa laga baqaya waynu naqaanaa ee sanam dadkii ku jira waa ognahay ciise heerka uuna gaadhsiiyey waa ognahay guryihiisi inay ku dhooma jirno jabuuti joognay iyo etoobiya xaafadahay degan yihin waa ognahay gadabiirsina wuxuu inoo galay waa ognahay wuxuu sameeyey isaaq ku sameeyeyna waa la ogyahay saasay tahay wixii waa halayr waa la cafiyey hadda qarankii bay ka tirsan yihiin waa la soo weeraray hubkii adaa gacanta ku haya taladii adaa gacanta ku haya inaad gurigooda tagto oo aad tiraha ciise maxaad isku haysaan iyo inaad daawato tiraha anigu waxaan fadhiyaa hargeysa oo sasan u eegay shalay taa hartigii waxa kaaga tiri aamusnaantani iyo waalidani shalay taa hartii nagu nacay maanta kan markaad dirto ma berberiya hargeysiye gabiilaya waxaynu joognaa ceeriga bal na fahansiiye waaya reer somaliland raalli ahaada hadalku haddu batayn waaya anaa haddaba laba arrin kuu sheegaya somaliland markii la idhaha aynu dagaalamayni ciise dagaalka waynala gac samarrona wayna dishay hablaheenni bay kufsadeen dumarkeenni bay dahabka ka goosanayeen waddadaa jabuuti loo maro inta ciise laga gaadhaya seylac wixii ka hooseeya oo buurta hoosteeda ama samaroon inoo gasho carruurna may sadqaynaynin may cafiyaynin boorama dusheedana waxay dhigteen daamur ku jira foostooyin oo ay karkariyaan ay isaaqa ku ridi jireen taa cid waliba way ogtay
dowladdii siyaad barre markii aanu la dagaalamaynay waxbadda siyaad barre ilaahay u naxariistee dee rajiimkii jabhadda markaynu la dagaalamaynay ee ummadda soomaaliyeed ba dagaalamaysay daamur bay iyagu inoo karkarin jireen ninka ciidanka soomaaliya aanu la dagaalamaynay daamur inaguma ridi jirin daamur karkaraya ninka hawiye abaalkiisa waad u haysaa ninka hawiye abaalkiisa waad u haysaa waxbaad i weydiisay ciise abaal uma haysid laakiin ka hawiye general caydiid abaal baad u haysaa war adiga hadalkayga dee isu qabti maya caydiidna general caydiidna abaal baad u haysaa ciise abaal uma haysidee haya hadalka aan kuu dhamay su-aal baad i weydiisay aan kuu jawaabo hawiye daarood wuu i bixiyey dhulbaanta i bixiyey oo mareexaan baa i bixiyey oo ogaadeen baa i bixiyey oo xaqiiqa ah hawiyaa yimi janan caydiid buu ahaa ninkii lahaa ma iyada oo gobti xidhan tahay baa gunti bannaanka joogta kii lahaa dalkaaga daafac diidi maah isaaq ku duulla dooni maah nin hawiye abuu ahaa hawiye caydiid intuu halkaa ka soo dhaqaaqo halkaa igu yimid rabbigu naxariistii jannaha ka waraabiye birmadaha maanta la sheego magaca birmade xasan ma lahayn caydiid baa lahaa waqooyi baana looga bixiyey magaca birmade haddaad maqasho maalintay nagu adkay maalintu hubka noo keenay jenaraal maxamed faarax caydiid iyo ciidankiisa maalintaasaanu birmade loo bixiyey magacan maanta xasan sheekh maxamuud lagu heesayey lale birmada xasan sheekh birmada wuxuu ahaa gobollada waqooyi balligubada lagu bixiyey jenaraal maxamed faarax caydiid baana magaca birmado lahaa isaaq baana magaca bixiyey waa hadaad runta doonaysaa waxaa yimi haddaba maanta ciise wuu nala dagaal galay wuu nala dhintay wuu nala dhaawacmay oo haddii xaqiiqda la doonaya laakiin ciise maanta waxaanu ka dooranna oo aanu ciise dhulkooda weerarka ugu nahay oo aanu ciise hablahooda u kufsanayna oo aanu ciise u dilaynaa oo aanu ciise xabadda hoosta ugaga dhiibaynaa waa nacayb ismaaciil cumar geelle aanu u qabna nacayb ciise aanu u qabno maaha samaroosici dhulkan ma laha ila allaahu bixaq ilaahay baa runta nagu cadaabay annaga lacag baa laydi siinayaa ciise la dagaalama baa nalagu waxba qarin maayo anugu amiir baa aniga igaan inta layla soo hadlay ayaa laygu yidhi amiirow lacag xalaalay waxaad doontaan ku siinaynaa la dagaalan ciise raggayaga miidiya lacagta waa adigii caynay maalmihii hore dee dhegaysa maanaan qaadanine lacagta waanu isku haysanaaye annagu lacagtu way naga raagtay lacag dambena aniga laygula meeraysan maayo muuse biixi baa ila meeraysto maalintu dhacday guriga iyo dhulkiisii olole ku galay lacag dambe oo laygula meeraysanaya aniga ma jirto anugu wax walba waan qarxinaya waana caddaynaya ciise waxaan kula dagaalamayay adduunyaan ka doortay ciise waxaan afka ooda uga saarayey lacag $30,000 qaada baa laygu yidhi hadda ma fahantay waana ina dhulkaa aad dhammaantiin raggiina midiyaa jooga aad lacagtaa qaadataan samaroon taageertaan dabeetana ciise aad dhulka ka qaadaan qof kastoo ciise waa inaad caydaan dumarka ciise waa inaad caydaan ismaaciil cumar gelle waa inaad caydaan jabuuti waa inaad caydaan ugaaska waa inaad caydaan gandarshayaasha waa inaad caydaan waa inaadan cidna reebin xaqiiqdu dhabtahay waa taa waxaanu dhammaanteed duulaan ku nahay lacagta bixinaya dowladaha islaamka waxaa bixinaya waa loogi aan dhammeeyo waxaan idiin sheegaya maya hadalka aan kuweydiina abtu waa hadlaysaa soomaaha lacagta daadeer lacagta cidana siinaysa waa waxaa tiri dowlad islaama waxaa laygu yidhi burburiye dowladinama siinaynin yaa ku siinayma qabiil baa markaa war qabiil baa na siinayey oo dad isku xidhan baa na siinayey oo isaaq loo samaroon leh oo wada socda oo shirkad ah oo lacagta bixinaya